ninkan oo 78 sano jir ah waxa uu guursaday 23 xaas 7 caruur ah ay u dhaleen 36 wiilal ah iyo 34 gabdhood curadkiisu waxa uu jiraa 53 sano halka guri dambeedkiisana uu ku jiro bishiisii saddexaad magaciisu waa Isxaaq Aadan wuxuu ku nool yahay magaalada Mooyaale ee dhanka Itoobiya wuxuu suuqa guurka soo galay isagoo 23 sano jir ah 55 sano gudahood wuxuu ku guursaday 23 dumar ah Isxaaq waa xoolo dhaqato caan ka ah deegaankiisa xoolihiisu mar ay dhaafayeen ilaa 800 oo neef oo lo ah wuxuu sheegay in xoolihiisa iyo hantidiisa badan ay sabab u ahayd inuu guursado 23 dumar ah hadda anigoo kale tahay waxa isweydiinaysaa sidee buu 23 xaas dhammaantood ku maareyn jiray wuxuu sheegay in haddii uu arko haweenay kale oo uu ka helo quruxdeeda uu furi jiray tii hore kadibna mid cusub ayuu guursan jiray hadda wuxuu la nool yahay 3 xaas hal mid ayaa dhimatay 19kii kalena way kala tageen isaga iyo caruurtiisa iyo caruurtii ay sii dhaleen waxay tiradoodu gaaraysaa 279 qof laakiin hadda waxa uu sheegay inuu daalay oo uusan qorsheynayn inuu guursado xaas 24aad sharciga Itoobiya wuxuu mamnuucayaa in qof hal mar wax ka badan guursado guursashada qof kale adiga oo aan furin xaaskaagii hore waxay kuu keeni kartaa ciqaab ilaa 5 sano oo xabsi ah sidee adiga u aragtaa arintan daawade horeyse ma u maqashay qisada Isxaaq oo kale